meydka nin konton jir ah ayaa laga helay xabsiga magaalada Trondheim ee waqooyiga dalka Norway ka oo lagu soo waramayo in uu ku sugnaa xabsiga kuna xukunaa xukun dheer. Kusimaha agaasimaha gobolka Renate Scientific ayaa ku waramayso in ay tahay dhacdo laga murugoodo oo aad looga xumaado maadaama ninkan konton jirka ah uu ku dhex geeriyooday xabsiga dhexdiisa halkaas oo ay sheegtay in hadda la baarayo. Hay'adda xabsiga maamusha ayaa sheegtay in aysan hadda doonaynin in ay faahfaahin ka bixiso ama ay ka hadasho goorta uu geeriyooday ninkan iyo sababta uu u geeriyooday uguna dhex dhintay xabsiga dhexdiisa. Booliiska ayaa lagu wargeliyay dhacdadan ka dhacday xabsiga magaalada Trondheim ee waqooyiga dalka Norway halkaas oo iyaguna ay soo gaareen baaritaanana ay ka wadaan sida ay sheegtay kusimaha agaasinka Renate Scientific. Waxa ayna intaa ku dartay in ay murugada iyo dareenkaba la qaybsanayso ehelada uu ka baxay konton jirkan ku dhex geeriyooday xabsiga magaalada Trondheim. Geeridan ayay ku tilmaantay mid aad looga naxo, ha yeeshee waxa ay sheegtay in ay dhacdooyinka noocan ah ka dhex dhacaan xabsiyada oo ay mararka qaar dad ku dhex geeriyoodaan. Booliiska magaalada Trondheim ayaa hadda sheegaya in uu baaritaan wado, ha yeeshee waxa uu diiday in uu wax faahfaahin ka bixiyo waxa uu u geeriyooday qofkan iyo sidoo kale goorta uu geeriyooday iyo dhacdada waxa ay xambaarsan tahay iyo sida ay tahay. Ha yeeshee waxa ay ku gaabsadeen in ay hadda baaritaano ku jiraan, natiijadana ay dib dambe dadka kala wadaagi doonaan. Konton jirkan ayaa la sheegay in uu xabsigan in muddo ah ku jiray, qorshuhuna ahayd in uu muddo intaa kasii badan kusii jiro oo uu ahaa xabsi dheer qof lagu soo xukumay. Ha yeeshee waxaa lagu soo waramayaa in uu xabsiga ku dhex geeriyooday halkaana uu ku nafwaayay iyadoo aan ilaa iyo hadda faahfaahin dhaba laga haynin xilliga uu geeriyooday, waxa uu u geeriyooday iyo cidda sababta u ahayd inuu geeriyoodo. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.